Sheekh Cismaan Sheekh Cumar Sheekh Daawud Culusow oo loo yaqaanay Sheekh Cismaan Xidig waxa uu ahaa caalim Soomaaliyeed oo caan ah kana mid ahaa tiirarka diinta Islaamka ee dalka Soomaaliya waxa uu noloshiisa u horay fidinta diinta Islaamka iyo barbaarinta bulshada Soomaaliyeed Allah u naxariistay sheekhi wuxuu dhashay 1942 wuxuuna ku dhashay degmada Ceeldheer ee gobolka Galgaduud sidoo kale sheekhu wuxuu dhintay 20 Julaay 2024 wuxuuna ku dhintay magaalada Muqdisho waxaana lagu aasay degmada Kaaraan sheekhu wuxuu ka dhashay qoys diimeed magac dheer ku lahaa Soomaalida dhexdeeda waxbarashadiisana diinta wuxuu bilaabay asagoo 10 jir ah asagoo xifdiyay markaas Quraanka Kariimka qolka Eebe adeerkiis Sheekh Cabdullaahi Sheekh Daawud Culusow ayaa si gaar ah u tarbiyay una baray culumta shariicada diinta Islaamka 1960 Sheekh Cismaan wuxuu ku soo wareegay magaalada Muqdisho halkaas oo uu ka bartay culumadii waaweynaa ee xilligaas asagoo ka faa'iideystay faniyada kala duwan ee diinta Islaamka مساجد كثير من المساجد اللي جايه هو ترسل كانوس كده هو كده كانوس كده غير الله يصير كانوس كده على غير غيره كده غير كده غير لانسي واحد كده شينا Sheekh Cismaan Xidig waxa uu qoray in ka badan 50 buug oo diini ah kuwaasi oo qaarkood u alifay qaarna uu turjumay kutubadaasi waxa kamid ah kitaabka Dalaaqa iyo kitaabo kale oo badan Sheekh Cismaan Xidig wuxuu baray culimo badan oo caan ka noqday dalka kuwaasi oo kamid yahay Sheekh Abuukar Sheekh Xasan Maalin Sheekh Cismaan Xidig Allah u naxariistay wuxuu geeriyooday asagoo 82 sano jir ah waxaana lagu aasay goob oo hore u dardaarmay oo ku taala degmada Kaaraan intaan kulmi doono muuqaalka xiga hadii aad halkaan nala soo gaartay fadlan waxaan ka codsanayaa in subscribe u dhahdo janaalka aad ayaad u baahan tahay